walaalayaal waqtigan aynu joogno waxaa jira fitan badan waxaa loo baahan yahay fitnada markaa in yacni markaa aad iyo aad looga taxadiro la iska jiro oo waxa weeye yacni lagu dadaalo in laga fogaado fitanka laga fogaado taas waa in aad iyo aad loogu dadaalaa dhibaatooyinka iyo fitanku casrigan way iska badan yihiin waxyaalahan miidiyaha iyo waxaasina aad bay uga qayb qaadanayaan hadallada markaa xanafta leh in markaa waxa weeyaan la faafiyo ma aha in waxa weeye waxa dadka kala fogeynaya in lagu hadlo ma aha yacni wixii markaa beenana waa in layska jiraayo aad iyo aad laysaga ilaaliyaa waayo beenta aafaaqda iyo jihooyinka gaadhaysa nebigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam ciqaab daran inay ka iman doonto ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam saas ayuu sheegay hadalka wanaagsanna waa sadaqo alkalimatu tayiba sadaqa kelmadda wanaagsani waa sadaqo tafaa'ulka iyo hadalka wanaagsan ha lagu hadlo hadalka wanaagsan ha lagu hadlo waqul licibaadii yaquulu alatii hiya axsan ina ashaytaana yanzaqu baynahum addoommadayda waxaad ku tidhahdaa buu allah yidhi yacni markaa hadalka wanaagsan markaa ha yidhaahdaan marka waxa weeye waxaa dadka kala fogaynaya waa in aad iyo aad looga taxadiraa waxaa fitnada markaa sii hurinaya waa in aad iyo aad looga dheeraada la yska jiraa yacni aad iyo aad waa in la yska jiraa islaaxa waa in laga shaqeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi innaha alxaariqa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa tii xiiraysay buu yidhi waa tii xiiraysay laa aquulu innaha taxriqu ashacr ma odhanaayo buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam timahay xirtaa walaakin taxriqu ddiin diinkay xirtaa baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa maxay waa fasaadu daati ilbayn dadka dhexdoodu inay isku xumaadaan qofka yacni dadka diinkoodii bay baabi'inaysa dadka diinkoodii ayay baabi'inaysa sideedaba markaysa wax madaxtinimaduna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoogu sheegay sataxrisuuna cala alimaara wa satakuunu nadaamata yowma alqiyaama waxaa ku dadaalaysaan madaxtinimada laakiin waxay noqonaysaa tiiraanyay noqonaysaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinta qiyaame marka imaarada lagu ordaayo oo ruux markaa yacni ku sugan iyo ruux markaa waxa weeye higsanayaaba ay aad iyo aad u raadinayaan dhibteeda ayaa badan xisaabteeda ayaa culus marka aad iyo aad yacni waxa weeye arrinka noocaas ah waa in marka lagu darsadaa yacni markaa fiirada lagu darsadaa waana in yacni markaa waxaweye macaamilka lagu macaamilayo waa in la hagaajiyaa oo yacni qof waliba dee markiisa markaa xaq buu leeyahay yacni gaaladu waxyaalaha inoo soo waarideen inaynu iska daba ridno ma aha dadku markaysa markaa inay dee ururo xataa noqdaan oo ururo loo kala qaybiyo oo ururadaasi marka waxa weeye ay iscaayaan oo yacni waxa weeyaan mucaarid iyo muxaafid ay u qaybsamaan oo qoloba qolada kale markaysa markaa dhaleecayso dee shareecada meel kagama sugna waxay markaa muslimiin yaqaaneenna ma aha waa wax gaalo laga soo waariday wax gaalo laga soo waariday weeye ummaddii islaamka inay isku mid noqoto ayaa la rabaa oo waxa weeye ninka madaxda ah yacni waxa weeye ay markaa sidii dariiqii sharciga ah ay ku soo saaraan dariiqay muslimiintu yaqaaneen lagu soo saaro ayaa markaysa waxaa loo baahan yahay yacni waxa weeye marka uu yacni ninka madaxweynaha ahi shagada marka uu hayana dee waxa weeye yacni waa lagala xisaabtamaya wixii uu xumeeyo dee xisaab baa uga dambaysa xisaab ayaa ka dambaysa marka xaqna waa leeyahay xaqna waa lagu leeyahay xaqa uu leeyahay waxa waa samciyo taaco waa in la maqlo la ateeco yacni waxa weye intuu jagada hayo oo wixii aan dembi ahayn lagu maqlo lagu ateeco wax dembiya cidnaba in lagu maqlo markaysa waxa ma aha oo lagu raaco laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq macaasida xataa sagiira hadday tahay dembiga sagiirada xataa in lagu ateeco lagu raacaa markaa mid bannaan ma aha cid kalena in lagu ateeca ma bannaana hadday waalid tahay hadday marka waxa weeye madax dhaqameed tahay hadday hogaamiyeyaal kale tahay yacni marka cidnaba in macsi lagu ateecaa ma bannaana laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq hadda ma aragta marka saas aawadeed yacni waxa weeye waa in aad iyo aad laysaga jiraa in waxa weeye ninka madaxda ah yacni dadka la necbaysiiyo oo markaysa marka waxaan yacni had iyo jeer la caayo si dadka loogu diro oo dadka ay uga hor yimaadaan waa wax gaalo laga keenay waa wax xaaraanaan bannaanay shareecada islaamka mid ku bannaan ma aha shareecada islaamka mid ku bannaan yacni waxa weye ma aha yacni waxa wixii nasteexaa waa in loo nasteexeeyaa laakiin dadka si loo necbaysiiyo in la yidhaahdo waxa weeye markaa xumaantiisa waa in laga warramaa yacni waxa weeye
waa in markaa dadkii lagu diraa ta noocaasi fasaad baa ka dhalanaya iyo xumaan baa ka dhalanaysa wixii fasaad iyo xumaan ka dhalanaysana in lala yimaado markaa waxa ma aha marka islaaxa waa in laga shaqeeyaa mudaharaadada gaaladu markaysa markaa laga soo qaatay yacni wax shareecada ku bannaan ma aha mudaharaadku waa xaaraan waa shay xaaraana oo aan bannaanayn waayo mafsadadiisa iyo dhibaatadiisaa badan shareecadana waxaa lagu yaqaanaa maa kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada xaaraan bay ku tahay mafaasid baa ku sugan nafaa ku baxa hanti baa ku burburta yacni waxa weeye fasaad fara badan baa ku jira dadka marka waxa weeye marka mudaharaad loo kiciyana lama dabdin karo waxa weeye waxbay burburinayaan waxbay kharibayaan waxbay boobayaan yacni markaa sababtaas yacni fasaad fara badan baa ku dhalanaya fasaad badan ayaa marka waxa ka imanaya mid la dabdin karo oo la xakamayn karo ma aha weliba soomaaliduna dee waa ka xab jirtaayoo soomaalidu waa dad markaysaa cadho dhow mar labaadkana waxa weeye gacantu ay ku xigto hadda ma aragtaa ummadaha qaarkood waxaa laga yaabaa iyagoo dee markaa xanuunsaday haddana inay isdabdiyaan oo isxukumaan oo yacni waxa weeye aanu yacni halkaa dhaafin ayaa dhici karta laakiin soomaalida laba aan waxbaba ka dhaxayn oo hadalku ka yara duulay baa laga yaabaa hala inay isugu siiyaan hadda ma aragtaa halka ummadaha qaarkood laga sheegaayo marka waxa weeye ay isu cadhoodaan yacni waxa weeye afkay ku kala ciil beelayaan hadday wax isla dhacaanna gacmaha isla dhacayaan iyagoo marka waxa weeye sitaa hubka isu isticmaali maayaan waa tiirsanayaan ummadaha qaarkood ay saa tahay yamantaa inoo dhow baa ka mid ah qorigii isagoo sitaa ayuu qoriga tiirsanaya golxabka aanu ka saarayn markiisa waxaan yani tooridan dheer ee golxabka la yidhaahdo aanu galka ka bixinayn intay iscaayaan gacanta isla dhacaan kabaha isla dhacaan dabeedna hadhow markiisa ay iska kala tagaan mid waliba qorigiisa qaato marka waxa weeye yacni fitnadii si yar bay u dhici kartaa u iman kartaa balaayo hor la qabtay leedahay daba la qabta ma leh yacni waxaana loo baahan yahay yacni sabir iyo dulqaad baa loo baahan yahay khaas ahaan xukuumaddana waxaa laga rabaa yacni waxa weeye yacni tudhaalo iyo raxmad iyo waxa weeye markaa dulqaad ayaa markiisa waxa la rabaa xagga marka waxa weye dadka kalena waxaa laga rabaa yacni in waxa weye iyaguna sabir markaysa marka ay la yimaadaan oo sabraan yacni xukunka markaa la doonayana dariiqa lagu helayaa dee fasaadka iyo kharibaadda iyo markaysa haddii fitan dhaco ma aha taasi mid lagu gaadho maaha inay fogayso mooye ma soo dhowaynayso ya yacni waxa weeye wixii wanaag lagu waayo dee waxa weeye gacan markaysa markaa laguma heli karo markaa dee in waxa weeye yacni lala yimaado tudhaale iyo waxa weeye dulqaad iyo sabir yacni labada darafba ayaa loo baahan yahay wadahadalna lagu dhammeeyo yacni wixii markaa la isla garan waayo yacni markaa saas iyadaa baa loo baahan yahay laakiin dadka wax magaradka in la kiciyo yacni waxaa ka imanaya yacni balaaya ka imanaysa fasaad baa ka imanaya dhib baa ka imanaya marka ta noocaasi dhibaato ka badan baa ka dhalanaysa marka dhibaato ka badan ayaa ka dhalanaysa marka arrinka noocaasa waa in aad iyo aad laga taxadiraa mudaharaadkuna shareecada kuma bannaana waa min wasaa'il alfasaad ahlucilmiguna waa caddeeyeen mafaasid fara badan baa ku jirta dhibaatooyin badan baa ku jirta kolley muxaadaro hore aan ka galay waa jirtaa oo wakhti hore aan ka galay wakhtiyadii rabiiculcarabi iyo yacni waddannada qaarkood mudaharaadada markaysa markaa lagu yacni xukuumadda lagu riday muxaadaro aan galaa jirta marka waxa weeye aan mafaasiddeeda marka aad uga hadlay wakhtiyo dad badan u rixinayeen ayaan markaysa marka aad uga hadlay oo waxa weeye markaa yacni tusaalooyin badan iyo markaysa markaa yacni waxyaalaha loo dariishanayana aad uga hadlay marka waxa weeye waa shay fasaad iyo dhibaato ay ka timaaddo shareecada waxaa lagu yaqaanaa saddu daraa'ic baa lagu yaqaanaa waddada mafsada keenaysa in la awdo balaayo hor la qabtay leedahay daba la qabta ma leh waatay soomaalidu yidhaahdaan hadda maaragta hadday xukuumaddu xataa hadday tidhahdo mudaharaad la sameeyo waxa weeye waa shay xaaraan aan bannaanayn mudaharaadku in la sameeya ma bannaana nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxau uhi man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum kii qolo isu ekaysiya iyaguu ka mid yahay waa waxay gaaladu markaa caadaadka ay la gaarka yihiin bay ka mid tahay fasaad iyo markaa dhibaatooyin baana ka dhasha yacni khayr kama dhasho khayray markaysa markaa dhashaa ma jirto marka in waxa weeye lagu dadaalo sidii wax loo dhirindhirin lahaabaa ka fiican in markaa waxa weeye markaa yacni dhib markaa loo badheedho ya gacantaadoo dhudhub gashay hadduu dhudhunku kaa haysto dhiridhiri ha joogtay inaad dhufato waa ceebe yacni waxa weeye wixii markaa yacni sida sahlan yacni marka ayaa lala yimaadaa yacni waxa weeye waa la rogrogaa yacni ma aha markaysa markaa in dhibaatooyinkii wixii sababaya
in lagu kaco markaysa waxa ma aha nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam lazawaalu dunya ahwanu cinda allaahi min qatli rajulin mu'min adduunyadoo dhan oo baaba'da ayaa nin muumin ah dilkiisa xaqdarre lagu dilo yacni ka sahlan haddii adduunyadoo gebigeeduba baaba'da ayaa qof muumina yacni dilka la dilo yacni markaa ka sahlan qofka muuminkaa dilka la dilayaa daran labada taasaa daran marka waxa weeye wixii ay ka dhalanayso taasoo kale waa in aad iyo aad laysaga jiraa aad iyo aad waa in laysaga jiraa oo laga taxadiraa oo laga fogaadaa oo waxa weeye sidii wax ku hagaagayaan yacni laga shaqeeyaa islaaxa iyo wanaagga yacni laga shaqeeyaa qabyaaladuna waxay markaa faa'iidaynaysaa ma jirto yacni qabyaaladda yacni dhib bay markaa sii sababaysaa yacni waxa weeye isku duubnaanta iyo waxaasoo dhan bay baabi'inaysaa meel la iskuma taagto qabyaaladdu wuxuu yidhi shaacirkii dugsi male qabyaaladii waxay dumise mooyaane dugsi male qabyaaladii waxay dumise mooyaane waa basal mar walba markaysaa markaa waxa waa sii socotaa uun meel iskuma taagto meel isku taagaysaa marka waxa ma jirto marka qabyaaladdu dan ma aha yacni waxa weeye dagaalku dan ma aha yacni dagaalka wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho waa tii hore loo yidhi wiil baa ku dhintee wiil kuma dhasho dagaal wiil dhalay ma jiro marka sidaas aawadeed dhib badan baa markaysa markaa ka iman karta sidaas aawadeed wixii fitanka waa in aad iyo aad looga fogaadaa dadka markaa dadka hoggaaminayaana wayna fitne ayna u horseedin nin saxaabi ah oo ansaartii ka mida ayaa wuxuu yidhi fii saxiixi muslim sida ku sugan nahaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam can shayin kaana lana naafican wa tawaaciyatu llahi wa rasuulihi anfacu lana wuxuu yidhi yani waa fii saxiixi muslim xadiiskaasi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu naga reebay arrinna anfacayo waxna tarayay buu noo diidoo naga reebay wa tawaaciyatu llahi wa rasuulihi anfacu lana allah iyo rasuulkiisa inaanu ateecnaan nooga waxtar badan oo nooga nafci badan yani wuxuu tilmaamayaa daahiran adduunyada haba moodaan shayga in manfaca ugu jirtee marba hadduu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam allah iyo rasuulkiisa in la ateeco ayaa markaysa waxaa nafci badan marka waxa weeye yacni waxa aynu samaynayno waa innu raacnaa kitaabka qur'aanka iyo sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam yacni marka waa innu taa raacnaa wixii markaa qalada waa inaan la raacin ama distoor ha qoro ama wax kale ha qoraan ama markaysaa gaala ha yeedhiso ama cid kale ha tidhaahdo ama markaysaa madaxii ha soo jeediso wixii markaa shareecada baatil ku ah aan shareecada ku bannaanayn in la raaca ma bannaana cid kastaaba markaysa markaa ha qorto yacni waxa weye mid bannaan ma aha kullu shartin laysa fii kitaabi illahi fahuwa baatilun wain kaana mi'ata sharti kitaabu llahi axaqu wa shartu llahi awsaq xadiiska saxiixa nebigu wuxu yidhi calayhi salaatu wasalaam shardi kastaan kitaabka ilaahay ku sugnayn waa baatil kuluu ku yahay 100 shardi waa baatil baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaase haddaan kitaabka ilahay ku sugnayn baatil weeye wa in kaana 100 shart 100 shardi kuluu ku yahay iyo 100 qaraar haddii lagu soo saaray iyo 100 qodob haddii lagu asixiyey baatil weeye waa shay aan bannaanayn in la sameeyaana ma bannaana waa shay xaaraan weeye kitaabullahi axaq nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam kitaabka ilaahay baa xaq leh in la raaco wa shartullahi awsaq shardiga ilaahay baa adag baaraka allahu fiikum yacni waxa weeyaan halgu dadaalo islaaxa iyo marka waxa weeyaan yacni markaa hagaajinta iyo u kala wadaynta iyo isu soo dhowaynta iyo isu jiidista iyo dulqaadka iyo sabirka ha lagu dadaalo sida marka waxa weeye markaa loo islaaxin lahaa loo hagaajin lahaana ha lagu dadaalo yacni cid walibana yacni ha isdejiso ha isxukunto yacni ha dulqaadato ha sabirto yacni markaa sida marka waxa weeye yacni aslaxa ah in lagu dadaalo waa in laysku dayaa wax fasaada waa inaan la ysku dayin wax fasaada waa inaan lala iman ee waa inaan noqon yacni cadow ama ku cunay ama ku ciideey yacni haddii waxa weeye markaa yacni aan anigu markaa ku fadhiisan waayo dee laguma lusho war dee kursigu waa soo dhow yahay yacni sidka markaa suga sidka yacni markaa iminka hasha hadday yacni markaa ay riman tahay oo la yidhaahdo waxaan doonayaa inay markaysagaa 7 bilood ku dhashaan doonaya ama 8 bilood ku dhasho war sid buu leeyahy ya war sidkii suga ya iyadoo dhalmadiiba soo dhowdahay haddii la dedejisto man istacjala shay'a qabla awaani ubtuliya bixirmaani yacni kii shay dedejista wakhtigiisi ka hor waxaa lagu imtixaanaa in laga qadiyo ya marka waxa weeye hadda markaa ifafaalaha muuqda yacni markaa rajadu waa idin fiican tahaye yacni sabir ku dara sabir iyo dulqaad ku dara oo waxa weeye markaa ha iska ciidaynina